dhalinyarada mayba awood haddii sida fayriling adeegsida dalla ka dhisi karo haddii sida xunling adeegsadona dalla ka burburi karo mudanayaal imarweyn mayba sharaf weyn in aha inaan madalun RSF ee sanadkan 2028 ee la qowdahay magaalada Qaahira ana qaybsiin kula aha isla markaasna aan siin kala wadaagahay fikirkay oo ka eedan sida dhalinyarada iyo qayb un ku nagada koran nabad dhiska dalka iyo siyaasadda guud mar haddii aan ka soo biyo hadalkay mayba ku hadala doonay ama focus kay saar doonay afar qaybood qaybta koowaad may ku hadala doonay muhiimadda yeelata in dhalinyarada qayb ku nagadan siyaasadda qaybta labaad may ku hadala doonay hababka shalgadiisan ee dhalinyarada iyo qayb ku nagada koran go'aamada siyaasadeed oo masiiriga oo dalka landeero iyago xitaa siyaasadda angalna qodobka saddexaad aan ku hadala doonay mayba fursado dhalinyarada iyo haysadan inuu siyaasadda qayb ku nagadan iyo anka dambeyn may ku hadala doonay hoob ilaahay caqabado iyo kulamaayaan galowka siyaasadda siiba dhalinyarada antiyo omodan inuu masalan bulshada hataba hordhacgo yar suubiyoy marka koowaad may baan baahanaa inuu ogaana ay dhalinyaro ah waqti may ba jartay siyaasiyiinta iyo erajaran markii la hadalaayaan dhalinyarada may beetina madaxdii mustaqbalka taasoo sababaasi lanka markuu is 20 kaba madaga us hageli inii us korora inii us dhalinyarnimo sheegada geeka may la roogay inii oday kontanjar ah us dhalinyarnimo walaha ka weydiisada maadaama dhalinyarnimadii nagati wal oo trending ah us oo ka gabado oo leey ana may baaha ciyaalka xaafada hataba su'aali is weydiinta mudan ma taha dhalinyarnimada mid shalay lu kororaya mise tangeeka la hangroorahay adduunka oo dhan hal qeexad ku haysade mise wadanba ama midow walba qeexitaan gaar ah yaan soo biyan bal isla fiirino hataba qaramada midooba way baan ka saayana qofka dhalinyarada ah lanka daadiisan dhaxayta 15 ila 24 meel midowga Afrika iyo anka saayan lanka dhalinyarada ah lanka daadiisan dhaxayta 15 ila 35 sano jar meel wadanka kiikana ee dawladda federaalka Soomaaliya lanka dhalinyarada iyo anka saayan lankan dhaxayta daadiis 15 ila 40 iyadoo taas ka qeexdii siyaasadda dhalinyarada ee qaranka oo la diyaariyay sanadka 2017 hataba walaagiba hadalkay intuu ku bilaabada intaan ku dhamaysado hadalkay mar walbo ana dhalinyaro ana refer gareeyahay may Bangladesh qofka daadiisan dhaxayta 15 ila 40 sida dawladda federaalka Soomaaliya qabta bal iska dayoy tirikoob yar inii ana soobi is barbardhig inii ana soobi tirikoobka adduunyada dadka adduunyada ka nool inta dhalinyaro ku eeyin iyo anta qof 15 jar ku yar maadaama qeexitaanka isku mid lanka hayna may ba adkaadase dadka oo dhalinyarada ay si isku mid elan barbardhig laakiin may soo bi korna dadka daadiyo 15 jar ku yar ya is barbardhigana si inuu ogaana mustaqbalka tirikoobka dhalinyarada qaarada ka badada doonta waqooyi America dadka daadiyo ku yar 15 jar meel ka qiyaasay boqolkiiba 18 inuu ku eeyin tirada guud ee qaaradaas meel koonfur America ama Latin America lanka soo boqolkiiba 20 ili dadshe iyo ku yariyeen daada 15 jar ka qaarada Afrika boqolkiiba dadshe may ku yariyeen 40 boqolkiiba dadshe may ku yariyeen daada 15 jar ka meel qaarada Asia boqolkiiba 24 dadshe ku yariyeen 15 jar ka Australia may la mid tahay sida waqooyi America boqolkiiba 10 dadshe may ku yariyeen 15 jar ka meel qaarada Europe iyo qaarada waqtigan hata la roogo inka dhalinyarada tirada dhalinyarada anka yar isla markaasna 30 ka sin hadeeron nagada doonta qaarada dhalinyarada anka yar boqolkiiba 10 iyo li dadshe may ku yariyeen daada 15 jar ka meel may ku aragaana in Afrika geekiya dadka 15 jar kan ku yar tirada anka badan ee qaarada adduunka marka la barbardhig taasoo macnaasha nagadaas 30 ka sin hadeera may bahaado doonana dhalinyarada meel inka badan adduunka in nagada doonta qaarada Afrika tirikoobku may fadayeen inaan haka bandhika tirada dhalinyarada ee wadanka kiikana geeka hata roogta percentage-ka iyo tirada dadka 15 jar ku yar percentage-ka ku eeyin population-ka guud ee dalka kiikana Soomaaliya
تركوبكم ما بحكوا قاعدة ده هنا تركوبك اللي صوبي لما كنتم يسديد لما كنتم يأفرت الدولة الفدرالية كيكو عاودي هي أديون اف بي اي ما دام انتان اوغ كاس ايكين كدنبي ما يبقى شيء تركوبك إني بقول كيبا أفرتن لان يرأته أين دات كده أديون بحيته توم إيشان إلا أفرتن ميله دات كده أديون توم إيشان جركو ير يوكش تركوبك سوسي شيء بقول كيبا أفرتن إلي دات شيء إني أين هتبه قال نوي مركا قيبون كمهم سنة أفرت قيبت أو أنا كهذا لفضاي كو ماي مهم إلا تمركا إني دلان يرد قيب كنا جدا ما دام ترد أنك بدن إبولشيد أو دلان يرأته دتكتم إيشان جركو يربغل كيبا فرتن إلي أين تاسنا معناش تصدون كسين حدر هيرون دلان يرد نجد دونا قيبت أنك بدن إبولشيد الصومالية بيبقى مهم أها حوجس إني سفيل لين أذيكسد قيب لون كواله سياسة ده سواء مركان أرجو إني مهم أته ما يبقى كميت أها كو مثلات رسمة ما دام بقول كيبو تضوات إيشان دتك كويرين ده هذا صدون جركة كمقناضو شو هي هذا قام سياسات ما يبقى سبباسه إني يوني ستوس لينك مثلنا ميسك قانك لكديرو مرك إذا مهم أته سيو مثلات رسمة هلان إني يقيب كو هذا سياسة ده sababtan muhiimka lanka aragoo may buahan aragtii cusuban jiililkii hor may baa aragnay soddon sano iyo mayla tacaalahayana inay xalalkii si fudud ka sheelaan taas may baan aragaanahay inay ku maqanto meele fikrado cusuban inay dhalinyarada qiib lahan kuweela shakhsi ahaan may baan aragay inay xalalka dhibaatooyinka hata jaran xalal indeerowsho fududaado doonta maadaama ay la kooyaan fikrada cusuban saameynta muddada dheer yaan way buahan qayb aan muhiimkan sababtan muhiimkan ka argo inay dhalinyarada qayb ku haadaan sababtoo odayga 70 jarka go'aanka uu sageeka deerahay saameyntii hadii bad 20 sano ma ku badadaas intuu directly uu saameeyas laakiin lanka dhalinyarka geeka 30 jarka 35 jarka go'aanka siyaasadeed geeka la deerahay muddo dheer yala noolada saameyntii hadii ay saameyn fayl saameyn xun milihi dhalinyarada oo dhan hal an wada dhiibay go'aamada siyaasadeed maya laakiin may balaha inuu meelo la ka deero ama miiska la ka deero iyo gobro ku haadan fikradoosha cusuban haka daran waana la ka masala sababta kale aan ka argo inay muhiim ah inay dhalinyarada qayb ku haadan go'aamada siyaasadeed ama siyaasadda lagu qayb gelimaan aragay may ba muhiim ah nabad iyo deganaanshaha dalka geeka hata dalka wala nabadi deganaanshaha diidan dhalinyarada hooba marka siyaasadda qayb lun kuweelna hoogsho may adeegsaday qof si qaldan adeegsado oo dalka ka burburiyo marka hadii siyaasadda qayb lun kuweela meel walbo dawladda ku saabsan ama bulshada iyo responsibility shoo ka qaado koran involvement lan kuweelo la tixgeli may ba ilaataha may qayb weyn ku qaadadaas nabadi iyo deganaanshaha la fado dalka inuu deera tan ka dambayto aan han qaadado muhiimadda aan arago iniyo dhalinyarada qayb ku haadan may buaha habiyo ku hogaamiyaal liska hadlaayo kor ama hogaamiyaal toosan sababtoo qof majara walwalba oo hogaan in baahan u sahla dhalado lan walba barade qaabka ka fayl qofka ka barado koran way boqolka inuu involvement ka hada inuu islahan ku bilaabo from dawladaha hoose shaqada civil service-ka wala dhoon ha ku qayb qaadada fursad lan si sidii may la eraayus an dareeman mas'uuliyadda sidii an helan khibrad maamul oo hadhowtii yo kanagada koran hogaamiyaal toosan oo la ka hadlaayo kor iniyo dalka kula wareegan jiilka hatirooga hataba qaabo badan jarta marka muhiim waa in dhalinyarada siyaasadda qayb ku noqdaan laakiin qaab kale way jarteen dhalinyarada yo iska abaabul koran yo ka saameeyo koran go'aamada siyaasadeed oo yo sugna bas inta xilin ku magacaabo ama mas'uuliin meelan ku weelo hababkaas isla fiirino marko dhalinyarada horta marka kood sidii nabad dalka qayb ku noqdaan siyaasadda intoosiyan marka kood qofka may baahan yahay inuu is aqoontis kordhi uswal isbar hadii bolan ka saana wal ada ka bedelo korta malle tala fayl ada dhiibo kortona malle inay dhalinyarada iyo helaan marka koowad aqoon ka filan dhinaca siyaasadda iyo sidii lan xalliyo dhibaatooyinka
bulshada ini baradan nidaamyada shalgadiisan ee hab maamulka isla markaasna ha ku qaadadan nidaam walba ki ku fayla iyo ku doodan erang macnaha nidaamkun saka faylaya bulshadaana qaabma inis haysata kanga aan fayla maya bulshadaana kanga aan fayla balsaas hata way marka taasna way ku kooy korta inaad ku doorato kono ku tabta ini marka koowad aqoontii aad lahaata ama aad aqoontii la kooyta tan kale aqoontii la kordhi kor dhalinyarada mayba ku mid aha iniyo helan tababara seminaara korlanka qaado xirfadoosha shalci tusaale ahaan fahamka walbarashada madaniga iniyo barada in la sii seminaara iyo tababara oo korlanka qaado horumar waana la hormariyo hogaamintiyo iniyo helan tababara iyo seminaara oo la ka baro sidii la hadalo shacabka abaabulka bulshada iyo silang maamulo mashaariicda iyo inka dambeyn iniyo helan tababaryaal badan sidii qayb lunkunagada koro waana lunku doodo arrimo siyaasadeed iyadoo xadgudub lan suubiyaan marka antun oo dhan way buaha qaabab shalgadiisan iyo xirfadyaal shalgadiisan dhalinyarada iyo iska diyaari koran aqoontiyoona laga kori karo ama dhalinyarada may qayb unkunagada koranaha toosiyowka siyaasadda hab kaleed oo hab kale oo gadiisan mayo habkaas in la suubi masraxiyadooda kow masraxiyadooda in la suubi barnaamijyo dood wadaag ah sida RSF iyo hata suubiyahay tahaato barnaamijyadan dood wadaag ah marka mayba bilaabayanaha inay dhalinyaradu ku doodan arrimo wadanka iyo mustaqbalka wadanka meelisan dareer fursada aan siyaasi inay ku doodan marka goobo la ka doodo faa'iido badan leeyin hata goobtan oo kale tusaale ahaan RSF yani ka qobada hayta magaalada Qaahira sanadkii lamaad oo xiriirta ah mayba inisheena hayta dad shal duwan qaybo shal duwan oo dadka haano siyaasiyiin iyo haano shacab masraxiyadun haato marka faa'iidada la tamay ahaa inii la ka ogaada dhalinyarada dareensha wali usayay lanka siyaasiga ee hooba marka kaliya uu dadka la kulmo nagata waqti uu wala ku fado dhaqaale ama shaqo ama mayleeraayus boss in magaca leh hadii ku fado ka adagti inuu soo ogaada dareenka dhalinyarada laakiin goobon RSF ee qobada hayta may rajaayay inay haan iyo ku badagna dad badan oo noomid ah hanoo dhaxba doona qobada doona waa masraxiye sahalaasa in la ka ogaada dareenka dhalinyarada taas marka may dhaliyaasa dhalinyarada hooba dareensho iyo muujiyan siyaasiyiinta may nagadaayna hano feejignaanta levelkii eeta may kiirinta hadba dareenka kii kan wali unisay hooba una dareenkan yariye fahamkan yariye wala una dhimandiga unu kasoo biyaan ama dalbadaan eedan yaryin way buaha siyaasiyiinta hanu feejignaadeen marka doodoon haato may sahlaasahe in la hela siyaasiyiin oo feejignaadeen ka feejignaadeen hadba dareenka bulshada suusay bulshadana fursadan ka helaasa inay ku muujiyaan dareensho masraxiyadun haato marka faa'iidooyinka leeyin may buaha may bahban biyaayana dhalinyarada haansho mudun iniyo bulsho masalan meelka shal ogaaday dhalinyarada kan mudun inuu bulsho masal iyo kan masalna marka in dhalinyarada haansho mudun la ogaada in siyaasiyiintii ogaadan feejignaanta dhalinyarada antaas dhow may sahlaasahay qaab oo si dadban ah may sahlaasahay iniyo dhalinyarada qayb un ku nagadan toosinta siyaasadda tan kale in la suubi golayaal dhalinyara heer degme heer gobol heer maamul goboleed iyo ilaa heer qaran golayaalku mayba fududeeyeen marka in la dheega edka dhalinyarada qaabayaan rabitaansho iyo nooc siyaasad ama maamul iyo fadaayan iyo iniyo un adeego koran hab rasmi ah oo dhalinyarada iyo qayb un ku nagada koran go'aamada ama miiska oo go'aamada siyaasadeed la ka deero dhalinyarada may kale iyo qayb un ku nagada korana ama kaalmayaasah in dhalinyarada si dadban iyo siyaasadii iyo walaagasni iyo iniska dhisano waana mas'uuliyad un ku nagata in la hela aqoonsiga doorka dhalinyarada in la hela ama la muujiyo waana la dabaaldega guulo iyo hindisiyaalka dhalinyarada iyo hormuudka ku ayay tusaale ahaan madalun RSF oo kale waa madal waqti hor anjarno waay geeka mayba buuyahayta meel badan oo binaawayta buuyahayta marka ini thank you leera oo la ka amaana la muujiyo waana la dabaaldega mayba
qayb weyn ku qaadadaas in dhalinyaradii mas'uuliyad isku saaran wadansho iyo siyaasadii iyo ka toosiyeen mayba tusaale kale anagadaayna dhalinyarada intii oo kale oo barnaamijyada mutadawacnimada oo kale dad ku suubiyaan wayba lagu yaabay RSF oo badan inay una helna aqoonsiga marka doorka dhalinyarada mayba kaalin weyn ku dheelasay inay dhalinyaradii ka dhaliida dareen mas'uuliyadeed oo ay hadhowtay si tartiib ah gudaha ku koraan inay nagadan siyaasiyiin oo bulshada wal ku bedeli kara markuun ku hadalnoy masalaada dhalinyarada talow horta dhalinyarada hatta waqtigan la rooga siyaasadda masalaad fayl ku haysadana mise ma ku haysadan haddii ku haysadanna masalaadaas ayna masalaad dhalinyarada masalahayd bal isla fiirinoy marka koowad cilmi baaris iyo suubidi madalla cilmi baarista elanka Somali Public Agenda iyo mayba cilmi baariska suubiday tirada dhalinyarada ay ka jiraan baarlamaanada maamul goboleedyada bal isla fiirinoy cilmi baaristaas wali sheegaas cilmi baaristaas may sheegaas in koonfur galbeed xildhibaanadii koonfur ors boqolkiiba 45 da'dii on dhaxayta 25 ilaa 35 sano meel maamul goboleedka Puntland oo 60 ilaa fidha dadka dhalinyarada percentage-ka mayba ku ayinahay boqolkiiba 28 meel Jubbaland oo la ka tiriyo ama cilmi baarista iyo sheegaysa iniyo adin baarlamaanka inka dhalinyar yar boqolkiiba 28 yaa ku ayin dhalinyarada 75 tafidha ee baarlamaanka maamulka Jubbaland anka dambeyn cilmi baarista may kala sheegaysa in Hirshabeelle iyo koonfur galbeed galmudug iyo boqolkiiba 50 xildhibaanadii oo ayin dhalinyaro haddaba markaad fiirida warbixinta ka qoran Somali Public Agenda cilmi baarista iyo suubiyan mayba meelkiin ku marka la koreeyo Jubbaland oo 28 ka yar anta kala dhalinyarada mayba ku haysadanaha representation ama masalaad ka filan laakiinse qaabkii ka helan masalaadaas ma dhalinyarada may laha ku doorday haansho mudun inuu dadka masalan mise si kale laha ka doorday yeedan insha Allah ma ku hadala doonaa may la raayus slide card kala hadareer ko marka caqabado ogaanoy may beernayhe sida warbixinta una ka qaadani dhalinyarada baarlamaanada may ku haysadana tira ka filan laakiin tiradaas ka kooyan ma tirada in ka faylahaaytay dhalinyarada la ku miridiya mis dhalinyarada haansho mudanaayeen malaha doorana haansho mudanaayeen hobl malaha doorana may caqabad ku reebay bal isla fiirinoy 5 ilaa 6 qodob oo aan isla caqabadooyinka ka weyn ee dhalinyarada haansho mudan inuu dadka masalan ku reebahaya inuu ku qayb qaadadan siyaasadda dalka ko may boqol iyo amaan laan dalka oo dhibaatadiis dhinaca amaanka eed xumaaytay soddonka sin hadareeri oo dhan dhalinyarada haansho wal baratay fahamsan haddii bulshada masala la ermeel fayl bulshada ku biilahay waxyaabaha iyo ku heerahayaan may ku mid aha amaan darada wadanka ku jirta maadaama qofka la fado amaan darada wadanka ku jirta lanka ka qasabaasa inuu mar walba security shay faylan ilaali usoo ka jara siyaasadda iyo usoo ka jarna lamaadaba marka dad badan iyo may reed in isku reebayaan amaanka amaan xumada wadanka ku jirta dartiye way banaagtay caqabad dadka mudan inuu dadka masalan iyo ku heerahayaan inuu siyaasadda qayb ku nagadaan caqabada lamaad aan islaha may buaha dhaqaale laanta ku qayb qaadowka siyaasadda may baahantaa marka inaad dhaqaale biida ololo badan inaad isku biida tilaabo walba la qaadowna may ka baxaase dhaqaale ama beesa xitaa may keen ku sii doran mar walba ada diiwaangelin ada soo bida fadaas hadii baarlamaanka adan tartamaas ama aqalka sare may baahantaa beesa kumanaan oo dollar inaad diiwaangelin aad ka soo bida qofka dhalinyarada oo waqti dhowlaha qalan jibi lama sin saddeed shaqo laan hay sanadko lamado sin la shaqeeyahay dhaqaale ka filan ma haysada marka inuu si qayb ku nagada ama ka weydii siyaasadda marka dhaqaalahana ma banagatay caqabad eed weyn oo dhalinyarada haansho mudan inuu bulsho masalan ku reebahay inuu qayb ku haadan siyaasadda tan kale may caqabad kale aha dhalinyaradii ma haysadan urur marka urur laanta dhalinyarada may basheentay inuu fadheedo waayan
miiska la gooyo go'aamada tartanka haddii dhalinyaradu urur iyo kamidaysan yihiin lahaada fadan idka dhalinyarada ka hadalo masalo haddii haysada fadan mayba dhii lahaaytay miiska oo go'aamada la kadeero oo la gooyo shuruudo tartanka oo ka jarta registration 5000 10000 amal in dhalinyaradu ku dagaalamo lahaayeen meel la ku reebo lahaay hooba dhalinyarada miiska go'aamada la kadeero iyo qayb ku haada fadan dhaqaalaha soo wiino dhalinyarada culeys ka haado iyo reebo lahaayeen caqabad ma nagada lahaayeen dhaqaalaha dadka oo mudan in bulshada mesela caqabad ma kanagada lahaayeen waana fududaada lahaayeen laakiin maadaama urur injarna qaab arintaas la ka xalliyo ma leh waana caqabad weyn yakaat dhalinyarada may kala shal qaybsanaanta dhalinyarada hab qabiil iyo fikiraya badan soo marka eedanka adagta iniyo hoogsho inis jeeyaan hal meel shal qaybsanaanta iyo shal qaybsanyin iyo may sheenahay tahay marka caqabad kale yeena dhaliidi iniyo dhalinyarada haansho mudan iyo siyaasadda helwaayaan ama qayb ku nagad waayaan iyo tan ka dambeeyay oo isku eed qof walba noo ogi qaraabo kiilka may banagaday checkpointiga in ku horeey waana in ka dambeey oo dhalinyarada geeka haansho mudan iyo la helwaaysan ama qayb ku nagad waaysan siyaasadda sababta may meeragaas xildhibaan la doorday holeer qof la magacaabay holeer lama qof leebi inay ku go'aaso taladana way buaha lanka markaas meelo madax ku iyo malaaqyada oo beelo antiuna ha ku aragnay mar walba yo wal dooradayaan mayba ka bees gareeyna ay qoys ile ay qaraabo ile iyo ay qabiil ile because qaraabo kiilkaas dartiis iyo dad badan oo mudanayeen iniyo مثلا dadka kiisho ya meele ku bahayaan waan caqabad weyn iyo kanagati qaraabo kiilkaas waan way baahan tahay caqabadaas in la ku gudoba si dhalinyarada qayb ku nagdan siyaasadda hataba may ha sheegnay dhalinyarada haansho mudanayeen iniyo siyaasadda galowsho caqabad badan ku haysata yatma fadow in hadalkay in ka dambeey meelihiin ku qaadatan usanagada in caqabad la jarto fursado iyo wal injarna helini jaba maya fursado badan badan oo dhalinyarada fursado iyo awood balba sii doona iyo dareereen fursadoogaas marka haano yara ku xusee bal ila fiiriya ko jihada wadankan dareera dhalinyarada mayba siyaasaha fursad weyn markaad fiirida baraaruga dhalinyarada oo eedan korahay sidii hor aan hayna mar walba la kafaali jari siyaasi oo beendad ahaan sheegay sanadooyinka inka dambeey oo dhan geeka ma jarta dhalinyarada baraarug shaqo rahay doorkii dhalinyarada oo la baradahay la ogaadahay dhalinyaro badan oo may bahabeen mutadawiciin hool badan oo bulshada iyo mas'uuliyad isku saarahaya saas daraadiya may la ogaadahay doorkii ka leeyin bulshada ini ay door eed muhiim ah iyo jihada wadankan dareer oo tartanka oo furan oo wal malaaq iyo madawiinaga meelo elan kirinayna nagada doonto hob ilaahay era one man one vote taasna may qayb weyn ku jeysado doonta waana fursad weyn siyaasi dhalinyarada haansho mudan waana may ban ka bishaaray dhalinyaradana laha jihada wadankan dareer jiha eed in faylo ay may balan baahan in la ka baraarugo caqabado laylan fiirina fursadona si faylan fiiriyo lanku faa'iideysado fursada kale oo meelo taala may boohan tirakoobkii hadaaha sheegani may ba sheegay in dhalinyarada boqolkiiba 40 ku eeyeen hal mar meelo hoos ku xariiqoy tirakoobkaas may la soo beelamadu 140 marka maadaama tirakoobka inka dambeeyay kaas reference ahaan in qaadadahay hata geek way ku yaaba in tiradaas hada ku badayeen marka tirada oo dhalinyarada oo eedan badan dartiye may ba siyaasad dhalinyarada advantage kala oo yo qayb in kuna gado koran siyaasadda teknolojiyada casriga usiina may booha advantage kala dhalinyarada siiyo oo fududaayo mustaqbalka ama bariyayba ama geekaba in yo qayb kuna gadan siyaasadda sababtoo baro bulshada may boo goobo oo anka fudud oo fariinta dad la ka deersii kor xitaa tirada anka badan dad la ka deersii kor dhalinyaradana marka may booha haansho anka ogaal badan ama anka aqoon badan silin adeegsado baro bulshada saas daraadee marka iyadana may ba siyaasada advantage kala dhalinyarada iyo qayb kuna gada koran siyaasadda advantage kala dhalinyarada iyo hay'adaha may booha guul darooyinka siyaasiyiinta hada roogan
سياسيين تهتروغان كي والب ويبها كقول دريسديه لما جير سدي جير أفر جير إنه يسبولشيد سيتوسا مثلا ما دام لكو آمن بها جيلكي هورا سياسيين تجيلكي هورا ما يبقى فرصة سياسة جيلكم عصبون دلان يرد هان هتروغان especially هان شو مدن إنيو مثلا بولشة أنك دنبين فرصة دلان يرد يوك هاي سدان ما يبوها دستورك ودنك أصيو إنيو حق إنليين إنيو أنترت مكوران إن بوزيشنة السياسة qaybtii lixaad ee qodobka konton isiida dastuurka federaalka Soomaaliya may basheegay shuruudo la ka biiro baarlamaanka may booha qofka in daadis un ku yarayn 25 sano marka dhalinyarada inta 25 ilaa 40 ka jaran oo tiri eedan badan ayin dastuurkii wali way baasan siiyay fursad marka ma in kaliya caqabado nahaysada le oo fiirina may baan baahanaha fursado hor yaalana inuu si faylan fiirina oo waana un ku faa'iideysan ولا حقوق السياسة الانجارده ما بس ان دستور فدرالك دستور او مامل goboleedyada oo dhan saaso tusaale ahaan maamulka koonfur galbeed dastuur shay qodobka 30 isiyeed ma basheegay qofka baarlamaanka kuna gado korin daadiisun ku yaraan 25 qodobka 61aad ee dastuurka Puntland ma sheegay qofka in daadiisun ku yaraan 30 sano meel qodobka 29aad ee dastuurka Jubbaland uu soo sheegay in qofka daadiis un ku yaraan ان 25 sano jar meel hirshabeelle iyo galmudug dastuuradii qodobada 30aad iyo qodobada 29aad ee sheegayaan qofka baarlamaanka ku nagado xildhibaan in daadisan dhaxayta 25 ilaa 75 hataba ma ba sheegnay in fursado jirta bal fursado ku hor way baan baahan horta inuu ogaana xirfado siyaasadeed إلين باهي قفك سياسي كنقدو أم هجان كنقدو إني يسولف إسكوبا إلى فضاو إني يسوقال إذا بديني ولا أنت لها كقوة كرمه لكن ما يسكديه شان حب عن إصلاحه أولو كويسين سياسيين تجيكا هذا اللي حل الله هاي لأن يرى كهوبا يسين حرف ضوجس إني ونقد الله هاي سياسيين فيل أدل شو ميل فيل كهجامي الله هاي كو لأن يرى ما إلين باهي مركو كود إني إسكوبا ين فهم كهي أدو إني فهمه كو أقانتي إلين باهي ما أكلي إني قير الله هلا بهر لأن يرى أها معناها إني أنا اللي إدور ذو لي ما كو إني هذا فهمته هي أذو ودنك قابك إن شقيا إني هذا آخر ذا دستوري ذا أو ذو يوسي ما إلى رئيس لنشلي هذا أن فهمته لما إني هذا هات قف له قف والأنضاضو ما إني هذا حل بان أها طبعا قبيلة كدور دي قبيلة مسألة هيته لكن ما إني هذا لون هك كوبنات بس قبيلة مسألة هي بس مش قبيلة أنضاضو لإني هذا كوبنات معه ويل فضاء إني هذا هات قف والأنضاضو تسألها لان ويل فضاء عدالة أنضارو إني هذا كي برد أما لندن كدن ير أنضاضو إني هذا كي برد أما لان يرد أنضاضو أما لان دستور أنضاضو أما لان فدرال أنضاضو ويل كوفضاء مارك إني هذا هات قف أو أنصرون لان والأنضاضو إني هذا برد مارك هبكلن كأولو ليو أما لان كداضو سياسة أو إزبدل شينس يعني يبغى حرفة أقونت أولن باهي يقف كفضو إنه سياسة دقر أنشحة إني هذا الله هات الشخصية دعنا مله دافرنان له إيو إسل حسابتن أقول وتان أنكم مهم سن قف هجان نقدو هو بلير وتان رسولك لكتل مع هايتي أنا نسيس إن هايتي الصادق الأمين كهر أنت أدوال أن نجنب هرت إني هذا لكي أجادواي لان لك كلسو نذكر إني هذا نجد ذكرت تاسنا من باهني دي مركز ولا كي ولا لين هذا بروف جريتو ما يبل بروف جري كرت أما لكي برضو كهر كهر أنت حتى والانويديسن وحرفت أما أستان أولن باهي قفكو جامينت نقدو إني سلكوي تنكر إني هذا لهات أما برت قاب ولا قرشيو قرشوين كسي استراتيجية سلندجو مدة دير إيو مدة إن جابن با إيو إني هذا برت سلند ماريو إن لباتوين ك هذا لهات صدقوا أمد دق إلين قاعد كر مركب لباتوين إيو والبدن إن علسي كالكوين حتى بمركو إنسبر بردكنوي هذا الك قاب كان على يرد قيبن كنا يذ كرت حرف ضاشة ولا أنت ما كقوة كرنا لكن ما دام وقت غيره بل إسبر بردك يركسو بينو سومالي ذي كروك تسديته إيو سومالي ونفضانا سدي نجت فضاس سومالي ذي كروك تنسيب دورها نوي بفكر شو دافو وايسن قبيل وهانو سند والبلنول أول إيو أبار وهانو عدالة دور إيو مسوق ماسق دتيو كناغتي
والعادة وهانو خيرات شو كوباهن قرنيال بدن لكن سومالي دون فضانا سأنكته ما يبقى فضانا إنون هلنا الصومالي كتلاقى ماس عدالت وانا مسوق ماسق لنكو أقلاين ما يبقى فضانا إنون أرقنا صومالي إنس بهي سداسة هب فكر أو إنس كبهي سدان هب قبيل ويبقى باهنا إنون أرقنا صومالي كفاية إذا سداسة خيرات شو يقولي هلسة إيو صومالي أدونكو كله ترتماسة إنو والبه taasna may la ka deeri kore dhalinyarada oo bulshada inka badan tirada inka badan bulshada iyo iniyo mas'uuliyad saaran qayb ku nagadan siyaasadda kaliya siyaasadda ma ee nooc walba hoggaan ee bulshada lanku baahanyahay iyo adduunkana la kala tartamo kor way ku yaabahay sida la ka helay in la isweydiyo isbedeladun la fado mise Soomaalida una fadana sa ka helaan ko way ban baahanta in la bedelo fikirka way ba jare faham qaldan oo jiilkii hore hanin gudbiyeen fahamkaas intii una haysan eedan inka adkaadaas una omidaysan inuu wada shaqeeyna Soomaalida un fadan meelka deeri kore bas una oo galnyaagan inis jeeyna soo fahamidaas oo qaldan oo jiilkii hore hanin gudbiyeen inuu meel isku dhigna tan lamaad in la kamidoo hab fikir meel hab qabiil una hata ka kamidoo wahayna hab fikir iyo baahana sababtaan in lahana wal kalama geek hadii qabiil A iyo qabiil B lama qof shal si walba dadaaliyo aan soo biyaan isku qabiil managada koran laakiin hoob kala fikir shalayn dadaal walba soo biyaan way lu ku yaamahe maalmo kumid inuu hal fikir isku nagadan marka in la iska bahaysada ama la kamidoo hab fikir waa wala an ka fayla ama qaabka an ka fayl una ka helo korna Soomaalida un fadaan iyo in la soo bi higsi eedan dheer tan eedadan caawiyaasayeen sababtoo adduunyada kala dhoo markaad aragta lan walba iska deeyay inuu isu wadan shay vision an soo bi vision kala 2020ka vision kala 2030ka marka uu in way baahan horta inuu lahaan meel uu hiigsadana oo lan walba uu noomid ku dhax argow dantis waana ma ba aaminsanaha qaabkaas in la ka helo karo Soomaalida una fadaan hadaba markuu isbedelku ay sheeno kor dad badan sheeno koran lama doore dheeli kor markuu isbedelku way sheeno korahe lan oo markaas mada sababtoo madeeda may ba awood in leeyin in sharciye iyo hab dhaqan iyo ka jiheeyaan shacabka sharci laha ku saaray walaan wal suubiye walaan mal suubi kor way ba leeyahay ama awood in leeyahay madeeda markaas meel roogta isbedelku la fadawn hadii la helo mada oo fahamsan bulshada meel languuri la fadaw hadii la helo way ba aaminsanaha Soomaalida una fadaana sidii agnagta in dad jeey kor ama ma akaliya in hatan galnyal isqobsado hooba madagaas bil waysinye meel la fadheeda ma way kala jishaano kor isbedelku dadka walgorodka may ba shacibka ka saamayo korana tilmaantiyo toosan iyo hagawsho cilmiyaysan dadka saddexaad oo sheeno kor waa hogaamiyaalka the question is ay hogaamiye una dhoomay bayna hogaamiyaal lan walba una noomidal may hogaanku ama mas'uulku nafsidiis marka koowad marka lamaad qoysay marka kalena qaraabadiis iyo intiisa hoos kooyas lan walba uu noomid ama hogaamiye ku nagado kore ama door ku dheeli kore dhibaatooyinka bulshada geekana haysata qayb kumid iyo door ku dheeli kore ma inuu meelo la isla fadheen waati xadiidka sahih bukhari ee raaway kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi unu dhon mas'uuliyiin doora bulshada ku dheeli korna dhibaatada oo jarta ma kaliya inii unu dhon fadhiino sugna bas intuun xilniin ku magacaabo si dhibaatooyinka bulshada qayb ku nagana way qayb ku nagado korne waana bulshadana dhibaatooyinkii jarta ku caawi korne ama ku xalli korne lan walba inis arag inuu hogaami waan may aaminsanahay dhalinyarada inuu qayb weyn ku dheeli koran lamaadun qaab oo la ka sheeno kor ama bulshada la ka bedeli kor ama la ka helo kor Soomaalida una fadaana maadaama dadka tira badan oo dhalinyarada geek walgorod isbedelada iyo wala fayliyo tilmaamo koran wala xun iyo tusaale koran iyo in lan walba mas'uuliyad gaar ah isaara sidii qayb ku nagada lahaay bulshada problem shay inuu xalli door bulshada isku dheela oo siyaasadda ku weydiyo ama siyaasadda ku weydiyaanib idan ma santin